بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني عاو وحن أبلغ سنين محاضرة دي أنسوين عنوان كيدو أها الإسلام بين أخطاء أبنائه وتشويه أعدائه. إن شاء الله محاضرة وحلقة يابا إني هالهبين نقطة أما إلا بفردي نقطة إن شاء الله كل وحي سؤالها هدي لبهبين نقطة هبين كدن بيان أدب ديغان دونا هدي أي هالهبين نقطة دي وحي سؤالي مركا معقول موضوع الله حريرة أينبا شيخ وكجواب دونا إن شاء الله. وحن كسر دوينا يا شيخنا الفاضل شيخ محمد عبدي أمل وضوضا قرانيسان إن شاء الله وحي وإلهي كفهم سيو موضوعا أننا وحن لقدونا يا إنان كفا إذا يسنو وأن سي ماركنو وكجرو وناك يحسني أن أدقيسنو وأن نقولنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. وحن كسر دوينا يا شيخ فليتفضل مشكورا شيخنا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، موضوع محاضرة سيدا أوشي ولالك مقدم كاها وحوي الإسلام بين أخطاء أبنائه وتشويه أعدائه. معنى هذا وحوي هدي الصومالية إسلامكو لبا خطرات بو دحيا لبا خطرات يو دحيا له. خطري waxay ka iimaanaysaa khaladka ay galayaan dadka islaamka ku abtirsaday muslimiinta. khatarina waxay ka iimaanaysaa cadowga oo gaala iyo munaafiqiin iyo wixii ka sheeya iyo wixii la mid oo la halmaala. arinta iyada ah ayuu ku saabsan yahay anwaanka muxaadaradu. waxaan jeclahay insha Allah taala intaan mawduucaasi rasmi u gadagelin aan bal muujiyo ama wax ka sheego asbaabta kaliftay ama keentay ama sababtay in aan muxaadaradan aqidno waxaan ugu bixiyay. intaan gudagelinse waxaan insha Allah taala kaleeto oo aan rabo inaan cadeeyo muxaadaradu waxaan ku tala gashanay inay noqoto laba xalaqo. xalaqada koobaadi inay noqoto darsiga caaw ah, xalaqada labaadna insha Allah taala habeen dambe oon rajaynayo sheekheena darsigiisi waqtigiisi ka qaadano hadii alla idmo. asbaabta muxaadarada inaan qabanno keentay kow waxa ah الشعور
بالخطورة التي تواجه مكاسب الدعوة الصحيحة dareen laga yaabo dad badan inay la wadaagaan oo ku saabsan makaasibtii iyo midhihii ay soo saartay dacwadu muddo 40 sano 50 sano ka badan ka yar waqtiga dheer midhihii ay dacwadani soo saartay oo khatar ku jira arrinna waxa ugu daran beer aad tabacday ood ku rafaaday ood u dhididay oo markii midhaheedii la gaadhay midhaheedii halis ka galeen meeshaad goosan lahayd midhihiiba khatar galeen dareenkaas oo dad badan ku jira waa sababta koowaad waa sababta labaad waxa weeye islaamku mar walba cadow buu leeyahay ilaahay baana kownkan tabaaraka wa tacaala sunankiisa waaweyn ka mid dhigay qadiyatu siraac الصراع بين الحق والباطل حق يا باطلك inay looltamaan lagatamaan dagaalamaan shiraan ilaa ilaahi tabaaraka wa tacaala oo adduunkan ka dhameeyo oo ka khatimo islaamka marka cadowgiisa marar badan wuxuu ka faa'iideysanayaa si uu danihiisa u gaadho oo islaamkii wax u yeelo ayuu wuxuu ka faa'iideysanayaa mawaaqif iyo tilaabooyin iyo khaladaad ay ku kaceen dad markaa muslimiinta ka mid ah ama dawladaha noqdeen ama jamaacad ha noqdeen ama ashkhaas ha noqdeen khaladaad la galay baa looga faa'iideysanayaa inay danahooda gaadhaan oo islaamkii suuradiisii iyo magaciisii tashwiihiyaan oo xumeeyaan khaasatan maalmahan hadda aan ku jirno oo marxalad runtii adag ah xaalad adag ah dagaalkuna intiisa badan aad moodo inuu u janjeersaday dhanka waxa loo yaqaano alxarb alfikriya dagaal fikri ah oo mabaadi in lagu dagaalamo bacdama meelo badan reer galbeedku ay ku fashilmeen ama ay ku dhow yihiinba inay ku fashilmaan dagaalkii caskariga ah ayaa waxay soo jeedinayaan mu'assasaadkooda istiraatiijiyaadka dejiya ta'thiirka iyo saameyntana ku leh qaraarka reer galbeedka waxay soo jeedinayaan dagaalka islaamka lagula jiriyo muslimiinta in laga bedelo wajigan u yahay oo loo bedelo dagaal fikri ah meedaanka lala galo islaamkii suuradiisii ay muslimiintu u haysteen saxda ahaa suura ka gedisan waa inaan qadimno oo inaga masaalixdeena iyo danaheena ka hor iimaanayna fikirkii saxda ahaa ama fahamkii saxda ah islaamkana waa inaan la dagaalamo wasaa'il madani ah oo silmi ah inagoo isticmaalayna waxay uga qiyaas qaadanayaan dagaalkii ay la galeen shuuciyada ama reebariga al-kutla sharqiya waxa loo yaqaano dagaalkay la galeen iyo guulaysigay ka guulaysteen iyo waxay isgarab dhigayaan maanta dagaalka ay kula jiraan muslimiinta iyo seen uga guulaysan karnaa mu'assasaadka marka istiraatiijiyaadka dejiya waxa ugu badan ay hadda tarkiisinayaan waxa way markaad akhrido taqaariirtoodii riboodkooda waxay tarkiisinayaan reebariga oo ruushku u horeeyay maynan kaga adkaanin caskari laakiin waxaan kaga adkaanay fikri markay ku jabeen baa waxaa raacday inay dhaqaale ahaanna u jabeen caskariyanna u jabeen islaamkana tiyoo kale way horta fikriyan waa inaan ula dagaalanno khaasatan fikirkan ayagu u yaqaanaan muxuu ahaayey masaalixdooda iyo danahooda inuu ka soo horjeedo fikirkaas waa inaan fikriyan ula dagaalanno mas'aladaasi marka waa mas'alo dagaal cusub iyo wajc ma cusba laakiin waxaa cusub dardartiisa iyo tawajuha hadda ay qaateen taqriiban reer galbeedku ayna ku tala bixiyeen mu'assasaadka sida mu'assasada la yiraahdo Midrand oo kaleeto oo kamida mu'assasaadka dejiye istiraatiijiyaadka reer galbeedka khaasatan Mareykanka
waxayna ta'thiir weyn ku leeyihiin sinaacatu alqaraar al-amriiki ba waxay ku leeyihiin saameynan caadi ahayn dardaaran noocaasay bixinaya waxaan marka taxaddi aad u adag oo ku saabsan islaamka sidee fikriyan aan xididada ugu siibnaa ayaan waajahaynaa kii askariga waa iska cadyahay kani waa iska cadyahay ka dhaqaaluhu waa iska cadyahay laakiin mid fikri ah ayaan waajahaynaa ka fikriga ah qodobada uu cuskanaya waxaa ka mid ah ee ay doonayaan inay uga faa'iidaystaan in la dilo magaca iyo sumcadda dadka manhajkoodu saxsan yahay sida rasmigana uga turjumaya kitaabka Allah iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam fahman wa ilman wa amalan wa tatbiqan dadka in suuradooda la xumeeyo si dadweynaha loogu diro arrintaana looga faa'iideysto khaladaadka ayagu ay galayaan laftooda inay uga faa'iideystaan waa xaalad marka halisaho dad badan laga yaabo inaysan ku baraarugsanin asbaabta keentay bay kamid tahay waxa kale oo kamid ah asbaabta in badan oo kamid ah muslimiinta khaasadooda iska dhaaf caamada xataa khaasadooda waa waxay ku dhacayaan dabinkii iyo shabakadii ay gaaladu dhigeen marka qadaayaadka taagan iyo arrimaha taagan laga hadlayo qaabkii ay gaaladu wax u wateen iyo istiraatiijiyaadka ay wateen iyo shabakaday dhigteen bay in badani ku dhacayaan markaas waxaad arkaysaa iyagoo ku hadlaya luqadii arabkii u fikiraya sidoodii u fikiraya yani waxa weeyaan min khilaal wasaa'il al-i'laam warbaahintaas yaa lagu saameeyay marka maskaxdoodii iyo aqligoodii wuxuu u fikirayaa si aan tabiici ahayn oo lagu riday oo lagu sameeyay min haythu yash'urun aw la yash'urun in badan oo kamida khaasada ba maanta ku dhacday dabinkaas iska dhaaf khaasada caamada iyo dadweynaha iska badaa waa mas'ala mudan marka oo laba mid bay ka iimaanaysaa arintaas dadka qaar kood oo muslimiinta kamida oo khaasada kamida oo ducaada kamida oo talabatul cilmiga kamida waxaad arkaysaa akhtaadii iyo khaladaadkii aynu inagu galaynay bay tabriirinayaan oo difaacayaan وهذه مصيبة مرمرك قاركود هير waxay gaarayaan ay yiraahdaan seeba looga hadli karaa khaladaadkeena koox muayana barnaamij muayana haysa muxuu ahaay majmuuca muayana muxuu ahaay guud ahaan khaladaadkeena yaan la taabanino aynu qarsanna waxeena dad baa halka taaganba hadii mulaaxadaad la muujiyo oo baraarujin iyo qasad iyo tasxiix loola qastana تصنيف وحبط قادني سابا عن عادي أهين بعد مركز مريسا أقول لكم مرينيا وخطأ وين وخطأ منهجي وآبو هالسوا قول هذا كلتنا وقول هذا أن شيء هيو عربكي يفكركي يقابكي قالوا الدجسي بسامي سيدو دي بيوهاليان سيدو دي بيوفكريا سيدو دي بيوحو تحليلنا كأن من حيث لا يشعرون أيقوا أرضاء النقضي وكلوه قارنوا المعنى واحد شير مركة ماذا بقول لحياة ماذا يعدان صما ماذا عدان أنا هين ماذا أنا هين بحشر فكر كان قالوا أي شيء أنا هين قالوا وحول بحر لقى مسلنا أنا هين بحشرو وباهن إلا بموتشيو وانا قضيه ان دون ان شاء الله تعالى محاضره ان كنت تركيزيو ونتائجتيدا inay ka soo baxdaan doonay kamid arintaasi waxay keentay oo kamida asbaabta hadda nagu kaliftay inaan muhaadarada aan waqtigan aqibno waxa kamida labada arimood oo iskaashaday oo soo tilmaanay baadad badan waxay sababeen inay ka qancaan islaamku inuu xaliyo إلا البلشدة المجتمع المسلم كا مددر واحد لجوسه تربييني الحل هو الإسلام حلك هو إسلام تربية ويسوقاتين الحل هو الإسلام بيكسر دوادين مجتمعات كإسلامية خلادات كبعياي يصير عدو التشويهين يوقف إذا سنة يلا وضع سوحي كينيا
in badan oo muslimiintii ka mid oo shalay ku qanacsanayd islaamku isaga xal ah maanta inay shaki ka galo waraaway islaamkii xalka ah oo mistaaqiyadii islaamka ba ka shakiyaan in badan oo ka mid ah inay geliso fariido ka mid ah faraa'idda waaweyn ee diinta oo usuusha waaweyn oo fariidatul jihaad ah in badan oo ka mid ah inayba tashkiik geliyaan jihaadkii la sheegahay soo kan muxuu ay wax kharibay ma jihaadkii inta la isu sheegahay la sharxay la isku boorinayo soo kan wax kharibay ma in la tashkiikiyo marka qadiyad halisteeda leh waxayna ka iimaanaysaa dadku inayna kala saari karin war dadka diinta sheeganaya khaladkoodu diintiyo khaldantay ma aha waxa ku yar dadka intooda badan inay kala fasliyaan islaamkii ka mabda iyo ka diin aan khalad lahayn oo macsuum ah iyo dadkiisii sheeganayay kufkufkooda khaladaadkooda yani akhdaadooda in badan oo ka mid ah ma kala saari karaan khaladka dadka ayuu diintii u saaraya markaas wuxuu leeyahay islaamka la sheegayo soo kan ma waa mas'alo halisteeda la way waana midhaha waayahan dambe aad ka dareemayso shawaariicda iyo sharaa'ixda mujtamaca in badan oo ka mid ah oo waxa la leeyahay maalan islaamiyiinta ama wadaadada muddo ayaa calankoodu kor u socday graafkoodu kor u socday fi xuduud Soomaalidan ka hadlaya marka wala soo dhaweeyay shacabku waa ku qancay wax badan baa la ogolaaday amaana wax la yiraahdo waa dad amaana alle baa leeyahay ganacsigii oo dhan baa loo dhiibtay shirkadihii baa lagu aaminay inaan wadaanahay wax looma dhiiban ummadii waxay noqdeen wadaad iyo wadaad raac xoolihii inay jeebkooda galo sama shacabkii waxay soo gaadheen mustawo ay ku aaminaan qiyaadaadkii iyo hoggaanka noocyadiisii kala gadisnaa hoggaamay dhaqameedyo inay noqdeen oo ugaasiya salaadiin noqdaan ilaa heer inay mujtamaca hoggaamin karaan oo dawlad u noqon karaan mustawahaasaa la soo gaadhay laakiin mustawihii la soo gaadhay maanta waxaa ku socda tadani baa ku socda inxitaaq hoos u dhac baa ku socda risaaladii wadaad watay khaatir billaahi baa laga taagan yahay wadaad waayahan dambe magaciisu kor uma socdo hoos buu socdaa waana su'aasha u baahan in la isweydiiyo maxaa sababay hadduu siyaasad soo galayna wadaadkii wadaad noqon waa wadaadkii wadaad noqon waa siyaasadii wadaadkii waxay ka dhigtay nin waraaba ah in saxa tacbiir nin aan kaba sokayninba kuwii aan wadaadada ahayn oo wax kumanba dhaamin yaa in badan ka dhigtay hadduu wadaadkii hub qaadayna hub aan farsamaysnayn oon xikmadaysnayn oo dhacdhac badan oo xikmad badani ka maqan tahay ayaa meeshii ka soo baxay wadaadkii saaxada markuu yimid asagii baa qoorta isugu jira bal wax kale iska dhaaf isagii baa la kala qabanaya dadweynihii caamada ahaa waxay taagan yihiin war wadaadkan soo socday iyo daruurtii inay noo daada aan sugaynay xaggaa ka soo socotay ma waxaanay dhashay sooma wadaad ma waxaanuu dhalay waa mas'alo saamaynaysa risaaladii islaamka iyo dacwadii makaasibteeda iyo midhihii la tabcayay muddadaa dheer akhtaa iyo khaladaad fi kulli almayaadiin ama midda caamka iyo masaalixda caamka ha ku saabsanaato iyo dadka u taagan ama calaa mustawa alafraad ha noqoto miaal aan fogaynba waxaad arkaysaa sharikadihii ganacsiga markaad u timaaddo wadaadadii gacanta ku hayay xoolihii dadkay uruurinayaan xoolihii dadkay uruurinayaan ammaanaad keen barnaamij baa la dejinhayaa waa la sharxahayaa dadweynihii baa laga dhaadhicinhayaa dadweynihii waa masaakiin habrihii faraqa dhowrka dollar ugu guntanaayeen way ku soo tuuraysaa sheekh hebel baa meesha ka muuqda
maalinta dambe waxaad ka warhelaysaa shirkadii way kala kacday oo meel aad lama yaqaan way kala kacday wadaha kala kacday xoolihii aawe xoolihiina meel galeen lama yaqaan wadaadkii hebelahay wax loo dhiibanayo xoolaha loo dhiibtay meel uu galay lama yaqaan isagiina isagii laftiisii baa balalaay ma xaqaa'iq baa mise wax ka badbadisa way kullu daalika waxaasoo dhan iyo wax la midkaa adiga shakhsiyan kuuguma dhacayso inteeda badane rasiidkeedu wuxuu dib ugu noqonayaa islaamkii iyo dacwadii iyo diintii iyo dadkii ayay saamayntu dib ugu noqonaysaa ammaanadii yani waxa way kalsoonidu inay luntana wax ka khatarsani ma jiro kullu shay khasaar dad khasaar dhul khasaar wax kasta khasaar laakiin kalsoonida haddaad khasaarto bas waa risaaladaadii waxaad wadatay iyo barnaamijkaagu meeshu waa ka baxaya kullu dalika waa waxay keentay inaan u cabsanno marka mustaqbalka dacwadan iyo mustaqbalkan diintan ilaahay baa ilaashanaya tabaaraka wa tacaala laakiin cabsi badan inay soo baxdo war wax xagee ku dambayn doonta war makaasibtii iyo midhihii intaasoo sane la beerayay baa la bilaabay in la cunee sidan hadday ku socoto soo midhihii la dhammaysan maayo soo shacabkii muxuu ahaayey wax kale iyo meel kale u gadoomi maayo soo waxaanay ka dhalan mayso midho kaleetoo salbiya ka dhalan maayo su'aalahana marka aad meesha u yimid oo laba arrimood meelood ka imaanaysaan horeyba u tilmaannay akhtaa'u alabnaa wa tashwiihu alacdaa labadaa khad ayaa sababaya oo ah kuwa keenaya nataa'ijta hadda aan soo sheegnay taasi marka waa asbaabtii aan isleeyahay taqriiban way keentay ama way kaliftay inaan caqidno muxaadaradan waxaan doonayaa inaan xalqadan hore aan aad uga hadlo oo aan ku xeel dheeraado islaamka magaciisa in la ilaaliyo sumcaddiisa in la dhowro inay tahay maqsad weyn oo maqaasidda shareecada ka mid magaca islaamka magaca dadka ahludiinka ah magaca dacwada sumcaddeeda in la ilaaliyo waa maqsad weyn oo min maqaasid shariica arrimaha waaweyn ee shareecadu ay ilaalisay waxyaalo fara badan oo waaweynna ay ka hormarisay ayuu ka mid qodobkaasi waa qodobka aan doonayo in aan darsigeenna caawa u bato liannahu huwa almaxak dad badan baa waxayban ka dhaadhacsanaynba magac islaam baa dhimanaya iyo magacii muslimiinta iyo ducaaddaa gubanaya iyo makaasibtii dacwadaa dhimanaysa dad badan baaban fiqhigoodii iyo fahamkooduba gaadhsiisnayn oo qadaayaad juz'i ah ayaa waxay kala muhiimsantahay ka hormarinayaan kulliyadaa weyn ee sidaan arki doonno nusuustu ay aad iyo aad u ilaaliso u waardiysay waxyaalo badanna ay ka hormarisay waxaa ka sugan oo qaacidadaasi ay leedahay asalka wax weeyaan ta'liifu alquluub wa jalbuha ila alislaam asalku waa in quluubta la soo jiido oo dadka diinta loo soo jiido oo dadka diinta lagu qanciyo oo wixii diinta dhaawacaya magaceeda iyo dadkeeda laga fogaado asalku waa kaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh siiradiisii baynu ka arki doonnaa wax badan qur-aankuna meelo ka mida waa tilmaamay markuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dirayo ragga ducaadda ah ee uu gobollada u kala dirayo sidii maalan abu muusa alashcari iyo mucaad iyo markuu dirayo yaman u diray waxaa ka mid ahaa dardaarankii nebigu uu siiyey sal lla alay wasalam yasiraa walaa tucasiraa wabashiraa walaa tunafiraa fududeeya oo dadka diinta ha ku adkaynina bishaareeya oo dadka diinta ha ka erina walaa tunafiraa tilaabo iyo khaladaad idinku aad qaadateen iyo mawaaqif aad qaadateen yaysan keenin inay dadku diinta kaga cararaan dadka diinta u soo jiida dowladda islaamku qasadkuu ka leeyahay waa inay dacwadu fido jihaadka qasadka laga leeyahay waa inay dacwadu fido wixii dacwada ka hor imaanaya waa in laga fogaado
wixii dacwada dhaawacaya iyo magaca islaamka waa in laga fogaado ila nabigu sallallahu alayhi wa sallam alayhi saad garanaysan Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ardaah Mu'adh ibn Jabal wa kiintu nabiga la tukada sallallahu alayhi wasallam kadibna xaafada gurigiisu ku yaalo masaajidka ku yaala ayuu hadana tujin jiray dadka intuu cishaha nabiga la soo tukado oo uu ka soo tago ayuu markaa kadib hadana xaafada masaajidkeeda tujin jiray Mu'adh marka nin fiqi badanna waa ahaa oo sida nabiga sallallahu alayhi wasallam a'lamu an-nas bil halal wal haram dadka ninka ugu yaqaanuha xalaashi xaraanta hadana maca dalika nin qiiro badan oo diiniga xambaarsan buu ahaa salaada markuu galo qiraa'adu dheereen jiray maalmaha kamid ah nin baa ku soo daba xidhay marka ninkii salaadii markuu ku soo daba xidhay ninka hawl baa ka fakanaysa dan buu leeyahay Mu'aadna salaadiisii uu iska dheeraystay sidii caadadiisa ninkanina hawl baa ka fakanaysa markuu arkay Mu'aad oo salaadii dheereeyay oo quraan dheer iska akhrinay ayar salaadii intuu ka goostay oo iska dhameystirtay budanihiisa raacday dantiisi waa Mu'aad baa loo sheegay Mu'aad wuxuu waa munaafiq waay ninka adduunyo darteed salaadii u goostay oo adduunyo raacasho imaamkiisa uga goostay munaafiq ninkii nabigu u dacwooday sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri rasuulilaahi ninkaas Mu'aad salaadu nagu dheereeya markaanu ka danaysanayna waa munaafiq buu leeyahay nabigu Mu'aad buu yeeray sallallahu alayhi wasallam aadna nabigu waa u xanaaqay wuxuu ku yiri afatanun anta ya Mu'aad war Mu'aad ma fataan ba tahay ma nin dadka diinta ku diraata maxaa dadka diinta uga fidnayni salaada marka dadka tujinayso khafiifi baa la yiri gadaashaada oday baa ku tukan midda ku tukanayo istaag taagnaanta ba kari kareenin mid yar baa ku tukan mid dalle baa ku tukan mid tabartaran baa ku tukan salaada khafiif baa la yiri salaada khafiifi dadka diinta ka caydin baa la yiri Soomaali salaada waxa loo khafiifin dadka in la jeclaysiyo masaajidka iyo salaada jamaacada laakiin in lagu diro dadka masaajidda ka cararaan khalad waa fitna saas daraadeed min maqaasid shariica waxa kamida ta'liif alqulub la tanfiruha dadka in diinta laga eriyo meehe waa in dadka diinta loo soo jiido ila heer waxay gaadhay shariicadu oo la gaarsiiyayba sakada sideeda sinfi ama sideeda qaybood ee sakada loo siiyay shariicadu u qaybisay ee xaq loo siiyay waxa kamida wal mu'allafati qulubuhum hatta shariicadu waxay gaadhay dadka xoolaha la siiyo si islaamka loo jeclaysiiyo dhaqaalaha hatta ay adduunyada hal isticmaalo si dadka diinta loo jeclaysiiyo qulubtooda loo soo jiido ila heerkaas gaar ittifaaq waxay ku yihiin culimadu hadduu ruuxu muslim yahay oo laakiin loo baqayo xogaa yaani jacayl iyo adduunyo iyo inuu diinta ama ku sugnaan waayo ama xogaa diintaba ka noqdo loo baqayo in uu ka mid yahay dadka sakada wax ku leh waa muslim daciiful iimaan islaamnimadiisu iska cusub tahay sakadu wax ku leeyahay بعض علماء السلف نوحي قبان حتى هدو قال يهي لكن للرجين يهدي وحلصيه إنه صو إسلامي دتك السكادة وحكول أبو كمدي جزئية الضنب وخلافية لكن قيبته خلافية معه طيب نبي صلوات ربي وسلامه عليه أرنتا إيضا مثال بان سوق هذا لنقابكو استعمالي تشري وحكم ذا markii ay dhacday xunayn duulaankii xunayn oo طبعا بعد فتح مكه مكه markuu nabigu furtay kadib xunayn duulaankeedu ah غنائمتي nimankii la dhigi jiray hawaazin markuu nabigu qaybinayay salawaatu rabbi wasalaam alayhi waxa rasuulka la socda salawaatu rabbi wasalaam alayhi muhaajiriintii waxa la socda ansaar waxa la socota
الطلقاء ونمكي مكة انت لغو قبطي لغو سلسيدا يو النبي صلى الله عليه وسلم وفصحي مسلمة الفتح نمكا اللي هذا وصو إسلام ومسلمة الفتح فرشدي مكة ووحي الكهر نمكي صو إسلامين والله سعودان كان يعلم تمركو النبي قيبين صلى الله عليه وسلم أنصار ولا قديي أنصار أحبال لك مسيم حالا بضم بيها مهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم وحبوه كسي لكن حوله بضم كود وحا لسيي وضيال مرد وصو إسلام وضيال مجتمع مقع كلها إسلام نبضون إسكع الصبتاح باحوله لقدرج حديث كدور صحابي باورينيا لكن لفظي كان أنت سوق هذا أنا وحويان وحديث كان رافع بن خديج وحوليه هاي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حسن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل أبا سفيان بن حرب وأضيق الرئي قريشت فرشادة مكوبة كو إسلام يابا صفوان بن أمية سيدو كله عيينة بن حسن أقرع بن حابس علقة ونيلا يدهدو رجع صوتنا بقول قيلوا النبي صلى الله عليه وسلم فأضيال شالي سوى إسلام يقول تاريخ ضادينا محي كل ما يستين النبي قال الدجال لنكيس حتى مركز إسلامينا مقالة يوم بالله قبصدي صوما حرون تيجوجين بالله قبصدي النبي صلى الله عليه وسلم اسكمع علين كرامة تورد بمتشرته إلهي تبارك وتعالى قلبي قوضو إسلامي ما أشرح هو إسلامي صوما وإسلامي وضياش النوع عاسو كلا إنك ما أنت وإنه عقابي لهين فك بانكو تاقي لهين صوما إن وحلا سيو حولا كدرتشين إسكبت داي والله فيقين لها لأنه وحوي عمري قادر انت دقال كسو قاتان ما أنت حوله إن يجل لقدر شيء ما أها دقن كنا ما أنت ما النبي صلى الله عليه وسلم بقول لهم نفوقيلو كدرش عباس بن مرداس اللي هذا كم إذا رجع حولها لسي وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك بقول وحكير هو إسقسي عباس بن مرداس كاسامرك الجبيي حوجا وحوسلوجي رضي الله عنه رجع إسقى الله يتكأها محل جاجيري هيك بقول بالسي هذيك محل جاجيري جوا يبتري مرك وحول أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداسا في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفعي حليه أنيق السدكيك إيا السدك عبيد وفرسكي سمجعي سواه السدكي إيا السدكي فرسكي كسوها هقاقي ما واحد كردكتي ميد ودخيا عيينة إيا أقرع يعني ميد كير عيينة إيا أقرع وضياشي بقول كلسي من رجع صاد نوجه سيسي سيب رسول الله يو بدر منك اللي له بدر كاسي وحويان عيينة بن حسن بن بدر أوجي واحد عيينة أوجي إيا نينك اللي له محوء هاي أقرع أبيه أو حابس ما أين انكسر رينين بيد أباها مرداس ميلها اللي يسوي يماتوا معنا كوضا ونمانكو إجماع أبا في عنان ترين واحد جوها عربي سقطت مادو أو يدو دي أبياشات أبياشة أو يدي كمان في عنان رسول الله يو كو وما كنت دون امرئ منهما أنيجا إيجا مركلس جانا كان جرب لجانا نينك هو سيمه إيجا أو يدي أبياشة كمان هو سينا أبياشة دي أو يدود أنا قلنا إيجا كم هو سيبول مرك رسول الله يو ما حدا نيجا وحواجا يريسي سيبوله وحدبر جاي ومن تخفض اليوم لا يرفعي ما أنت نيجا هوصل لكتنا دب دم بكر لو قادم معي خلاص حال كيس هالك سكويجي ما أنت نيجا ماشي هادكتي ولقي هالك أمبو أولي دونا وحي رم بالسين دونا لو صوتوري دونا مرك رسول الله سيدا يدامبو رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي الإيمان كأن لك قادي إيمان سمردي يا
إيا أكل لك قاعد يضبط بقتنه وحوجاجا إيمان سمده لكن النبي حسبه صلوات ربي وسلام عليه فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بقول كيف النبي يقول ما يستر صلى الله عليه وسلم ما يجازوا بقول كيس إلا دقائق رسولك صلى الله عليه وسلم مركو رجع أضياشة بقول كسيء أنصاري ويقطنتهاي ورجع إسلام كوسود دجال ماي مكان فرتي أنت سهل جميع مهاجرين تكلم إيش تشوجا وقاعد ولا قدي إلى وحوجا أنصاري أي أرندر أنتيو معها فقهاء ذي أضياش ودي معه لكن دائرة تمر والهو مشكله ملفق حكمه في ريال ملفق حكمه في ريال دائرتي أنصارين باوح ترستي وحي إلى هذين سيفها النجيبة دي جودي كقيان أضياشا مركزها حولي أنا وأنا فرنا لسينا يا أنا جنا لقدينا يا ميا سيحوجنا هذا هو النبي قريش مكرش رجل حولها الله قيبين وقريش صوما رجل قتلنا وأنصار مركز النبي صلى الله عليه وسلم شيكدي مركي سو غادي أنصار بو كل ميي غوري سوغي ما دبر ولا سيمت ويمت سو كليغيا wuxuu idin yiri yaa idin la joogo oo idinka ahayn wiil aan dhalay baa nala joogay oo gabadhana u dhashay ibnu ukhti alqawm minhum gabadha wiilka ay gabadhu keentay reerku ka tirsan yahay buu ya wiilka ay gabadhu keentay reerku ka tirsan markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam la hadlay oo wuxuu u cadeeyay sababta keentay inuu kuwa nasiyo ayagana qadiyo ujeedadaydu marka waxa way xadiisku waa dheer yahay qasadkan kale waxa way nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam oo ansaar ku yiri markuu qancinay fa inni u'ti rijalan hadithi ahdin bi kufrin ata'allafuhum maqsuudkaygu kaawe rag maant mar dhow soo islaamayo gaalnimo ku dhow islaamnimadooda iska cusub tahay baan xoolaha siin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaanan u siinayaa ata'allafuhum وان صوت دميايو اسلامنimada u soo jiidaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam samartan odayaashani waxay ahaayeen ugaasiyo iyo salaadiin iyo madax bay ahaayeen ninku meeluu madax ka ahaan jireen inuu minjan noqdo ma rabo waxyaalaha الصحوة الصومالية الصحوة الإسلامية في الصومال حركات الإسلامية iyo mujtamacu meelaha isku fahmi laayihiin bay ka mid tahay wiilkii yaraa wuxuu rabaa odaygii inta soo talin jiray inuu yiraahdo wariyaa dadka ka mid noqo nunu iyo war mar rabaanu dadka ka mid warsaas ma aha sidaas ahayn baa jirta nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi raggan uu madax weyneynaya ayagu soo jiidaya ayagu rabaa inay wax fahmaan xooluhuna qiimo ma leh أبو سفيان مركي مكة النبي قال صلوات ربي وسلام عليه مكة مركو قال صلى رسولكم مرة صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن أبو سفيان قرقي سنيكي قال أيوان نبط آمن ويحمل لي يلي ماي وأبو سفيان قرقي سمحا كحرا أبو سفيان بقى لكم مدحوينين سمعت قابكم النبي قال رقم تشري صلاة دينته إيو وقاسية إيو أضياشة إيو ما أهين دتك كم النقطة ما أهين صح لكن وحي أهيد نبي صلوات ربي وسلام عليه إنه سوتشيتو حولكو قنعيو هذا إسلامان وقاسني مدودي السلطان مدودي أدايو كل معاملاته نبي مرد مرنا بصلوات ربي وسلام عليه نين غير أطليا وقاسني مديسي إن لقت تخلصه قول لي هذا دتك كم النقطة مدعن في حياتي هل نباشر وريركيسي أي كسو إيديان رسول الله وبخيل وأنا في على كيسيس قالوا نقعنا هذا يقاس إدين نقول ماي هبل باردين كوب بدليب النبي صلى الله عليه وسلم لكن تتكلم هذا كلام قوائش سيدي بيقول السنيد أو سويد السنيد أو خزرج ويد السنيد أو دوس ويد السنيد أو قوائشني أيقو سيدو دي أردسن وقاس سيدو دين كرامي سيهين صلاة دين تو دي كرامي سيهين أيان النبي سيدو دي هو استعمالي oo badalkay jaahiliye iyo xumaan u khidmayn jireen buu xagga khayrka u jeediyay nabigu sallallahu alayhi wasallam
تأليف القلوب إن قلوب توضل لك كسبض أو لسوتشيدو أو لقى قيب قليو عمل كإسلامي جاء حديث آتنا هذا ورفريسو ضدك كم منه من نقول يورقاتين يا من نقول ورقاتين حقيقة آدي وحو آدي ميل وكسو عشادو سلطة سي أو ديسي اللهم إنهم تبرت أرن شيك تمويه وحو أن كل سوقي مالنتي وكرسي سكا قاد الله نبي حكمة دي سوفير سمرك صلوات ربي وسلام عليه وحكى لته لفظي كلتا لفظي وحا سو صار بخاري ومسلم من حديث أنس لفظي كلا وحو ليه هي النبي صلى الله عليه وسلم أنصار وحو كيري إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة قريش من كان ليلها جاهلية واكو عصبيهن مصيبة واكو عصبتها يواكا وحنا دركتان باكو دعي وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم وحان دونيا دبك سو غاري inaan kabo inaan soo jiitoon qulubtooda soo jiidoon islaamka jeclaysiiyaan doonaya ansaaray qasadka aan u siiyay odayaashan xoolaha jacayl ma ahee xikmadda inaan dadka islaamka u soo jiidaan u siiyay ansaaray buu nabiga sallallahu alayhi wasallam miidan raali ku ahayn inaad nabi maxamed qayb u qaadataan dadkuna ay xoolo qaataan oo guryahooda la aadaan ya رالي بان هيده قنعني مركا وي مركو النبي صلى الله عليه وسلم الانصار شعار والناس الدثار لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار هجرته هدين تشري لهين انصاري بان نقول لها النبي صلى الله عليه وسلم انصاري واج مرضي جيركيغا خيغتي وي ددك انتودا كلنا وا مرضي كوره ee jirka ka koreysay شعارك waxay waa marada jirkaaga soo xigta funaanada hoose matataha marada jirkaaga soo xigta shicaar leeyahay difaarkana mid ka sii koreyso ansaar nabigu waa qanciyay xikmadii bay fahmeen sidii buu nabigu hawshii ku dhameeyay salawaatu rabbi wasalaam alayhi qasadku muxuu yahay marka qasadku wax weeye iyo ujeedadan hadda u keenay qisada iyada inaan dareensiyo islaamku inuu dadka soo jiido oo gaalada soo jiido oo kuwa muslimka ee dhaiful iimaanka soo jiido oo islaamka loo soo leexiyo oo la qanciyo waa maqsad weyn oo maqaasida shariicada kamid ila rabbi tabaaraka wa taala sahmi khaas oo ka siiyay zakada qodobka labaadi waxa weey nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi muhiimadaas daraadeed waa muhiimada ah dadku inaysan diintii ka cararin magac xumo inaysan diinta ka faafin dadku inay diintii u soo cararaan sumcad iyo magaca diinta iyo dadkeedu inay dhisnaadaan sababta daraadeed ayuu nabigu wuxuu ugu dul qaadan jiray waxyaalo waaweyn mafaasid iyo dhibab waaweyn oo maanta aynaan u dul qaadaneen buu nabigu dul qaadan jiray salawaatu rabbi wasalaam alayhi waxa kamida dhibabka iyaga ah dhibkii ay munaafiqiintu ku hayeen منافقين محيي منافقين توا مجتمع قيب كمده هو تكنيا أو سكينيا أو دولانك أو راعي أو مركهراي أو مجتمع عيسى كمده سيدا ظاهر كبوقت لكن قلبك قالك أو أورك قال لما كقرسناه أحكام أهان مرك اللي يلهذا أحكام المسلمين تليه هنا الدنيا ده أحكام المسلمين تليه مجتمع النبي كتر صلوات ربي وسلم عليه سنفقا إيا النوعاسي دبكي النبي مريان صلوات ربي والسلام عليه قيبا كمدا أيان إذن تابسين سيئاد أقرتان دبكا أونمانكا أقود القاتي وحا كوين دبكا كتلان كرام مركي فافتوه محمد مسلمين تيبو اللينيا محمد دادكي سيبو اللينيا مقع حمو إنا إسلامك كفافتوه ayaa ka daran dhexdaada in dib lagu hayo oo u sabirto dhowr qisaynu soo qaadanayna oo waxyaalihii ay munaafiqiintu nabiga kula kaceen salawaatu rabbi wasalaam alayhi kamida hadana nabigu sallallahu alayhi wasallam uu san leeynin munaafiqiinta waxa kamida حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه بخاري مسلم بحديث كصوصاري وحوليه هي غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين النبي قال لدوا لبر دولان ورعني أسقوا النبي قصوا أورورين ضد مهاجرين تكمده
حتى كثروا إلى أي صوبتين يعني النبي وحال الله سعودي مهاجرين بدن ويسوء أرورين وكان من المهاجرين رجل لعاب مهاجرين توحى كتشري وكم إذا نين عيار بدن حل ليه علماء قرقود ليهين وحو آد وعيار بدنان تشري محو هاي إيبوينك إيا ورمها إيا قابك اللوغنا إيا ضد waxaa jira faraka ciyaar badan nin ciyaar badan baa marka kamid ah jahjah baa la dhigi jiray ninkaas fakasa'a ansariyan nin ree ansaareed ah ayuu dabada ka laaday saaro iska fadhiya ayuu dabada laad kaga dhuftay waa ciyaaraya isagu marka فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا أنصاري مركا وو حناقي حناقا عادي أهين إلى الله يسوع واقضي محل يسوع واقضي لو هذه من هذه اللي زقعان رافي والله يسوع وروا على مركا أنصاري وحو يري يا للأنصار طلع يا أنصاري طلع يا أنصاري الله يهليو مهاجرين وحو يري يا للمهاجرين طلع مهاجرين أرنتوا قرار هو المحوها هاي جروب كيسية كوحدي سيبوا كوهور وعدي صوما فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مركز النبي كصوب حي هو شيء مركز اللي صهبر وعدي ويبقى هل استاجنت هاي مهاجرين يا أنصاريين يسكون عان أي النبي كصوب حي صلوات ربي وسلام عليه مركز وحوري ما بال دعوى أهل الجاهلية والجاهلية دي إسلام ككوه الرئيسي حبروا عشرة دي حال كده محوية طلع ياي إيه لياي إيه ريركيجيو إيه كوح ذيديي وركاز ووركي جاهلية ده محوية وحن مقلة محوية مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما شأنهم حال كده محوية تذكر سوح كان نقدين سوح جرا فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية نبي وحى الله شيء نيكي مهاجري جاها لا ضدي أول لا ضي نيك أنصاري جاه سيدنا وحى جرا بالي مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة هبر وعشد الجاهلية إسكت داية ويحنطها في رواية فإنها منتنة ويؤرسها مبدأ معها أردت مركز أنت أورد عضو يساكو قبوضي نيكي منافقين تأضيق وضعها عبد الله بن أبي بن سلول أيا أرنتي كور هلي مركز وحيري أقد تداعوا علينا ميسوك أنا يدن مهاجرين ما أنت يجوا مدينة نلتشوا ونسود ويسني ونقول كنجي أن سود تشني وحولها نجي وحكسيني وقبلها نجي أجوريني مية ما أنت يسوك أنا هبر وعدين يا ما هالقاسي ما أنت تاجنت لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل بوري ولا هدان مدينة نبض أقول نقولنا متك عزك بدني وكسر مجالات المدينة متك الدلك بدني يوكوا متك عزك بدني يا سجع سكوا صوما متك الدلك بدني يوكوا النبي يوكوا صلوات ربي وسلام عليه أفلاقات خطر متى نبي محمد نيكي كوي له هذا ودلي كورما warkiisuna iska bacad yahay ma dambi ka weyn baa jira tayib waliba dulli kaliya ma dhihine ka dadka ugu dullinimo badan weyn dadka oo dhan ugu dullinimo badan hadduu xataa dulli kaliya dhila aan lahayd magaalada Madiina wada joogi bayna bidaan isaga Umar radiyallahu ta'ala anhu marka wuxuu yiri ala naqtulu ya rasuul Allah hada al-khabitha min kan hun man dillo عمر سيفتي سابناكي تعالى رسول الله يقول نين لو أتكيسن كرما نين كان عندنا نين في عنوان حنا عبد الله بن أبي بن سلول بساكله مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم أفير صدق حكمته هالكون لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ضدك كشة كيسن مايان محمد صحابتي سولين هي أمل لين شري إيقافي ميسو محمد رجي سيبو اللين يا وركاسي أنا إيقافي ما يبون النبي صلى الله عليه وسلم أنتي وركاسي إيقافي لها دب كيسان يسقط القاضنا يا وفي رسالة
dembigu ma dembi saalan ba xataa haddii uu daahiran muslim yahay waa qodob keeni kara riddo iyo diinta inuu ka baxay soo saas ma kufri daahira waa riddo daahira waa haddana maca dalika nabigu sallallahu alayhi wasallam ma dilin muxuu dili waayo waa su'aal ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ba awoodu nabiga isaga celiya laha maya laakiin maxaa loo dili waayay nabiga cadeey sallallahu alayhi wasallam waxa loo dili waayay hadii la dilo ninku waa tukanaya nabigii buu duulaamada qaar kood u raacaya saxaabadii buu ku dhex jira sakadii buu bixinaya waa ka dadkii buu kamid yahay mujtamacii buu kamid yahay adduun weynaha kale kaama war hayaan dadkuna ma oga nifaaqa qalbiga ugu jireed ku dilaysa adigu sababtaad u cuskanayso dilkiisu macda dadku ma oga sooma maanta hadii intaad soo qabato aad dagta dhiigga u turtood qoorta u casayso maxaa la qaadanaya waxa la qaadanaya nin ragiisi kamid oo masaajidka ku jiray oo inta la socday buu maxamed qoorta u caseeyay wadanigu nin qumma ma nin dadkiisiiba ka baxsan laayihiin yaa kale u iimaanaya marka خلاص intay taasi ka dhalan lahayd dibkiisa Allah dulqaato ya soo xigmad weyn ma xigmad weyn rasuulka salawaatu rabbi wa salaam alayhi maqaasida waxaad garanaysaa marka waa weyne shariicada waxa kamida tilaabada ay ka iimaanayso magac xumadu ay ka iimaanayso aslan waa in laga tajallubo hadiiba islaamkii tashwiih iyo magac xumo ay ku iimaanayso tilaabada noocaasi mafsada weyn weeye mafsadadan uu Abdullah ibn Ubay ibn Salul uu hayo saxaabadii buu isku diro qabiil ahaan isugu ridi gaaray laba qabiil buu intuu yaani sabab u noqday waaba la isku dhici gaaray waa fasaad iyo fidno waa nabigii buu hadalka ku leeyahay salawaatu rabbi wasallam alayhi waa fasaad iyo fidno waa inta ka darana wuxuu soo jeediyay oo ansaar u soo jeediyay reer Madiina la tunfiqu ala man inda rasuulillahi hatta yanfaddu nimanka saa u galay inoo galay ee maanta isu keen bahaysay isu keen yadhe inagoo ihsaanka u sameeynay aynu ka goosanno biilka iyo taageerada aan ka goosanno iyaga iska kala tagi waa wax maanta loo yaqaan cuna qabataynta dhaqaalaha cuna qabatayn aan ku soo rogno buu nimanka ayaga iska kala tagi doona maxamed wax la socday Soomaali muxuu ka shaqeynayaa nabiga iyo saxaabadiisu inay kala cararaan qorshaheediina ma qarsanina waa muujinaya banaankiiba soo dhigtayba hadana maca dalika nabigu sallallahu alayhi wasallam dilin waxa loo dili waayay wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam la yatahaddathu an-nasu annahu kana yaqtulu ashabahu hadithka bukhari muslim soo saaray lafdi kale muslim leeyahay wuxuu leeyahay umar baa nabiga wuxuu ku yiri da'ni adrib unuqa hada al-munafiq munafiq nabi allah aan qorta u casayo madaxa ku dhufte ii ogolo rasuulku yiri salawaat ii fasax markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam da'hu umar oo daabu faraqa لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه dadku ku sheekaysan maayaan maxamed saxaabadiisii buu leenayaa faraha ka qaad rasuulku sallallahu alayhi wasallam meeshaasi marka waxa weey laba mafsadaad taala laba mafsadu sharcigu isgarab dhigaya mafsada waa inuu kugu dhex jiro ruux Abdullah ibn Ubay ibn Salul oo kale oo fasaadka ka shaqeynay dadkaagii uu ku dhex jiraa mafsadana waa dilkiisa mafsadada ka dhalan karto magac xumada ka faafaysa way labada mafsado ka culus ya magac xumada ka culus halka markaynu marayno dad badan oo maanta la dilayo Abdullah ibn Ubay ibn Salul wuxuu sameeyay mayna sameeyay mataan zama وانا بدي كنتي عدوغا هبا كفايديستي ان ما انت اللي يراهدو ددكي مساجيدا لوgu leynaya musalliinti baa la dilaya wadaadadii dadkii eerbay ka dhigeen laana wax weeyaan tilaabadaad qaadayso natiijada ka dhalanaysa maalka ka iimaanaya markaadan fiirinin eed adiga wax juz'iya oo wax ku salaysaay macnaheedu wax weeyaan tan oo kala iimaanaysa al-imam ibn Nawawi alayhi rahmatullah hadithka markuu sharxay wuxuu yiri وفيه ترك بعض الأمور المختارة أرمها قاركوض وشرعه دورتي إن لسكت دايو لغا تغو بحديثك لغا فايدس والصبر على بعض المفاسد مفاسد قاركوض ديباتوين كقاركوض لغو صبر خوفا من أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم منها أيضا لغا بقيو مفسدة تاغن متكوينين كدلت دي تلاوة لغا قاد وكان يتألف الناس نبي قدتكو سودا ويسنشر سود منشر
ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين منافقين تي أعراب ترباديها قلف سنان تودي أضاضي قوضي ديب قوضي النبي وأسبري جري صلى الله عليه وسلم وغيرهم محيو أسبري جري لتقوى شوكة المسلمين مسلمين تأود دودو إن حوغي ستة درادات لأن المسلمين تحوغودو محوكو حوغيستا إن المسلمين تبطان صوما سيدا سيحكو غاري كران إن دادون صوغلان لكن المسلمين تو إن يرادان ودادكو ككل عران إسلامكم هو ضعيفة وأنا مد ربي تبارك وتعالى كتل مامي في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ما هين دقال ما هين ما هي هشيسك حديبية لأن مددا دتك صو إسلام والدين تصوغ علي با انت صوغور كبدنا دتك صو إسلامي وقتك كهر أو 10 سنة محمد دوري 10 سنة يعني مددا دتك دين تصوغ علي لبدا سنة دتك صو إسلامي وكبدنا marka fatx mubiin wuxuu ku yahay dadkii ba diinta soo galay ila nabiga sallallahu alayhi wasallam sulhul hudaybiyya markuu tagay hudaybiyya baan dhihla markuu aadayay wuxuu watay 1400 xuduudaas watay laba sano kadib markuu Makka furanayeen ma quwatay 10,000 baa la socotay soo farqi weyn ma farqigaasi wuxuu ku soo islaamay muddadii gaabnayd ee heshiiska la ahaa ee badankood soo islaamay marka fatx mubiin way sidaas daraadeed dad islaamku inuu xoogaysto daraadeed wa tatimma da'watu al-islam islaamka dacwadiisu inay dhameystiranto fido وليتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة ذاتك اللي سوتشي ذي قلوب توضا إنه إيمانك صفي عن أقل درادت ويرغب غيرهم في الإسلام كوا آن مسلم كأهين إنه إسلام كتشعلادان درادت وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك حول فربضنا ووين يصوت هدرت النبي أسين صلى الله عليه وسلم محوء هاي ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى صوبت درادت والنبي المنافقين تقول لين ولإظهارهم الإسلام يجوا إسلام ماذا موجسني وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وهذا الكلام